dilka ka hor Jenny Galo Rodman oo hadda 66 sano jir wuxuu qaatay 18 sano isagoo iska dhigayay inuu yahay arday caafimaad kadibna cilmi baare ka ahaa ururka caafimaadka adduunka ee WHO. xaqiiqdii wuxuu lacag ka helay dad ay reerkiisu asxaab ahaayeen wuxuuna ku andacooday inuu ku maalgelinayo Switzerland. wuxuu ku kacay dilka sanadkii 1993 maadaama khiyaanadiisa ay soo shaacbaxday. Rodman oo si weyn loo tixgeliyay inuu ahaa arday tusaale ah wuxuu ku guuldareystay inuu iska xaadirin waayay imtixaankiisii koowaad ee sanad dugsiyeedka qaybta caafimaadka ee magaalada Lyon 1974. waxaa loo ogolaaday inuu ku celiyo sanadka koowaad ee 12 sano ee soo socda. weligiisna ma uusan qaadanin imtixaanka. si kastaba ha noqotee wuxuu u sheegay asxaabtiisa inuu qaatay daraasado caafimaad oo caadi ah iyo ugu dambeyntii inuu dhakhtar noqday. wuxuu sii waday isagoo iska dhigaya inuu shaqo ka helay hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO oo xarunteedu tahay magaalada Geneva. xaqiiqdii wuxuu maalmihiisa ku dhameysan jiray meelo dhow xadka u dhaxeeya Faransa iyo Switzerland. wuxuu mararka qaar booqday adeega macluumaadka ee WHO. sanadkii 1980 wuxuu guursaday saaxiibtiis waxayna isku dhaleen 2 caruur ah. dhammaadkii 1980 wuxuu mararka qaar u sheegi jiray qoyskiisa inuu safar dibadda u aadayo. kadib wuxuu iska aadi jiray meelaha nasashada, mararka qaar hodheelo ayuu seexan jiray. dabadeedna wuxuu usoo laaban jiray guriga isagoo hadiyad u sida qoyskiisa. markii hore Rodman wuxuu ku noolaa lacag guryo ardaydu seexan jireen oo waalidkiis ay ka iibsadeen Lyon. markay taasi dhammaatay wuxuu ka faa'iideystay qaraabadii iyo asxaabtii uu ka codsaday inay maalkooda ugu deeqaan qorshayaasha uu sheegay inay ku heli karaan shaqooyin UN ah. dabayaaqadii sanadkii 1992 qaar ka mid ah dhibanayaashii lacagta uu ka qaaday ayaa weydiinayay lacagtooda, halka saaxiib oo reerka ka mid ah ayaa ka shakiyay kadib markii uu ogaaday in magaca Rodman uusan ku jirin liiska shaqaalaha WHO. bishii Janaayo 1993 wuxuu dilay xaaskiisa isagoo isticmaalaya rolling pin ama budka burka lagu fadhiyo kahor inta uusan dilin gabadhiisa 7 sano jirta ah iyo wiilkiisa 5 jirka ah, wuxuuna ku dilay qori. isla maalintaasi wuxuu u safray wax ka badan 80 kiiloomitir ama 50 mayl wuxuuna aaday gurigii waalidkiisa wuxuuna dilay labadaba iyo sidoo kale eygoodii. wuxuuna kusoo noqday gurigiisii halkaasi oo naagtiisii iyo caruurtiisii oo meyd ah yeelay. kadib dab ayuu qabadsiiyey. kahor inta uusan dabka qabadsiinin ayuu liqay kaniiniyada hurdada. hase yeeshee Rodman waxaa badbaadiyey dabdamiyaal. xabsiga ayaana loo taxaabay wuxuuna dembiga qirtay sanadkii 1996. waa 3 sano kadib markii uu qoyskiisa laayay. wuxuu xaq u yeeshay sii deyn sharafeed sanadkii 2015 taasoo loo ogolaaday bishii Abriil ee sanadkii tagay 2019. intii uu weli sugayay maxkamadeynta wuxuu bilaabay xiriir inuu la yeesho qoraaga Emmanuel Criki si uu uga sheego taariikh nololeedkiisa iyo nooca dhacdooyinka. wariyihii wax ka qorayay wuxuu ku dhibtooday sanado badan inuu ku qoro buugga ku salaysan isweydaarsiga maadaama uu doonayay inuusan noqon sawir daanyeerka ama difaaca oo eed ayuu iska ilaalinayay. buugga The Advisory ayaa ugu dambeyntii la daabacay sanadkii 2000 wuxuuna ahaa kii ugu iibsashada fiicnaa. waxaa loo bedelay filim 2 sano kadib. kiiska Rodman wuxuu sidoo kale dhiirigeliyey filimkii 2001 ee Time Out, nin la ceeriyay oo qoyskiisa khiyaanaya isagoo iska dhigaya inuu xafiiska tagayo maalin walba isagoo ujeedo la-aan u dhaxeeya Faransiiska iyo Switzerland. Rodman ayaa muujiyay wax laga qoomameeyo waxaana lagu soo waramayaa inuu diinta ku qaatay muddadii 26 sano uu xabsiga ku jiray. teedigiisii hore ayaa dhaleeceeyay go-aanka sii deynta wuxuuna u sheegay raadiyaha Faransiiska sanadkii tagay ee 2019 ereyga xurnimo way adag tahay in la maqlo. aniga ahaan wuu guuleystay maadaama xabsiga laga sii daayay. haddaba intaas ayaan kusoo koobayaa. haddii aad ka hesho sheekadan fadlan la wadaag asxaabtaada. mahadsanid.